السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحرن channel كان الصومالي يونيفيرس كسوة هذا مركليو برنامج كيني أرماه بالشدة أسبوع عام برنامج كيني وحن كسو قادن دونا ناق امتحانتي سدح ذي ذويل حاسس كولا تلو يكو قولستي balse intaan gudgalin karo barnaamijkeena haddii midaan ay tahay booqashadaada kugu horeysay ee channelka fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto aadna rukumato batanka notification si ay kuu soo gaaraan fiidiyoodii ugu dambeeyay aan soo upload garayno mahadsanid naag waayeel ah ayaa waxa ay leedahay waxaan dhalay 3 wiil saddexdoodiina waa ay wada guursadeen curudkeyga ayaan maalin booqday waxaan ka dalbaday inaan la seexdo habeenkaasi markii subaxii la gaaray ayaan xaaskiisa ka dalbaday biyo weesqaad ah waan weesqaatay waana tukaday markaan tukaday kadib biyihii ii soo haray ayaan ku shubay sariirta markii subaxii ii keentay shaaxa ayaan ku yiri gabadhaydii sidaan waa xaalka waayeelada anigana xalay sariirta ayaan ku kaadshay xaaskiisii ayaa qaylo afka saartay oo si xun u canaanatay maamadii iyadoo u sheegtay inay si dhaqso ah ku dhaqdo ayna ku qalajiso ayna mar kale ku laabanin haddii kale aysan imaan karin guriga maamadii ayaa tiri waan dhaqay dharkii waan qalajiyay aniga oo qarinaya xanaaqayga wiilkayga dhexe ayaan haddana booqday sidii oo kale ayaan sameeyay oo sariirta ayaan ku shubay biyihii weesqaadka xaaskiisii ayaa aad u qaylisay waxayna u sheegtay ninkeedii oo aniga wiilkayga ah isagana hal kalaan xitaa ma dhihin oo madaxa ayuu dhulka geeyay waan ka soo tagay waxaana soo aaday wiilkayga yaraanka ah si aan ula seexdo isla sidii oo kale ayaan ku sameeyay oo aan ku sameeyay xaaska wiilasheeda weyn iyo midka dhexe markii ay ii keentay shaax subaxii ayaan u sheegay inaan xalay sariirta ku kaadiyay kadib ayay tiri maya hooyo sidaa ha dhihin xaalka waayeelada ayaa sidaan iska ah meeqa jeer ayaan dharkiina kusoo kaadinay inaga oo yar kadib ayay firaashkii soo qaaday oo ay dhaqday kadibna nadiifisay kadib ayaan ku dhahay gabadhaydii naag saaxiibadeeda ayaa ii soo dhiibatay lacag si aan ugu soo iibiyo jijin marka cabirkeedana ma hayo laakiin adiga ayay kugu cabir tahay ee cabirka gacantaada ii sheeg kadib ayay suuqii aaday maamadii waxayna haysatay lacag aad u fara badan lacagteedii oo dhan waxay ku soo iibisay dahab kadibna waxay gurigeeda ugu yeertay wiilasheeda iyo xaasaskooda waxayna soo bixisay dahabkii waxayna u sheegtay in ay wax firaash ku shubtay aysan ahayn kaadi balse uu ahaa biyo kadibna dahabkii ayay gacanta ka saartay xaaska yaraankeeda markaas ayay tiri tani waa gabadheeda oo aan magangeli doono weynaanteeda inta cimrigeyga ka dhimanna aan la joogi doono labadii xaas ayaa aad u shalayay shalaytotii ugu darneed fahal jazaa'u lihsan illa lihsan